waxaa saacadii u dambeeyay baraha bulshada qabsaday waraysi uu bixiyay agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay'adda nabad sugidda balse la sheegay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayna dileen taasoo abuurtay xiisad xooggan. Fahad Yaasiin ayaa qaybta saddexaad ee waraysiga taxanaha oo laga qaaday markii ugu horeysay ku shaaciyay xog la yaab leh waxa uuna tilmaamay in mas'uuliyiin iyo dalal shisheeye ay iska kaashadeen kiiska Ikraan Tahliil Faarax si loo sumcad dilo hay'adda nabad sugidda. Taliyihii hore amniga qaranka Fahad Yaasiin oo carabka ku dhuftay dadkaasi ayaa ku sheegay inay yihiin xildhibaan Mahad Salaad oo hadda ah taliyaha hay'adda NISA iyo sidoo kale wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. waxa uuna sheegay in wax ka ogaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. gabadhaas Fahad Yaasiin oo warkiisii wata ayaa wuxuu yiri gabadhaas gaara ayaa lagu qaaday nin xildhibaan ah oo la yiraahdo Mahad Salaad ayaa la kulansiiyay isaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyay Daarusalaam xaafad la yiraahdo oo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin. gaarigaas ayaa laga qaaday waxaa la marsiiyay Shabeellaha Hoose meel jilib u dhow ayaa la geeyay halkaas ayaana lagu dilay ayuu yiri agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dilka gabadha uu fuliyay Mahad Karatay oo madaxda Al-Shabaab ka mid ah ayaa howlgalka fuliyay xiriir dhowna ay leeyihiin xildhibaan Mahad Salaad oo hadda ah agaasimaha NISA. waxaa kale oo uu yiri Ra'iisul Wasaaruhuna uu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayo aakhiro qofka gabadhaas laga weydiin doono waa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. farsamada fulisayna waa Al-Cadaala ayaa iska leh ayuu dhahay gacanta dishayna waa Mahad Salaad waxaana fuliyay Al-Shabaab soo hadalka u dhigay agaasimihii hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad ma shaacin dalalka uu sheegay inay qayb ka qaateen dilka Ikraan balse wuxuu tilmaamay inay yihiin laba dowladood hadda ma raba inaan magacyadooda sheego dadka Soomaaliyeedna way fahamsan yihiin ayuu yiri Fahad Yaasiin. ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay kiiska dartiis inuu isaga halis badan u galay islamarkaana lagu celiyay waddanka Jabuuti xilligaas oo uu doonayay sida uu sheegay inuu kiiska Ikraan Tahliil horgeeyo madaxda golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. hadalka ka soo yeeray agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku soo beegmayay iyadoo oo horey mas'uuliyiinta uu hadda eedda u jeediyay qudhooda ay isaga dusha ka saareen dilka Ikraan Tahliil iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. fadlan daawada haddii ku taa markii ugu horeeyay muuqaalkeena ku soo gaaro subscribe noo saar YouTube-keena Daryaan Media waana ku mahadsan tahay daawashadaada.